السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada saaxiibayaal, magacaygu waa Cumar Maxamed Cali, kuna soo dhawaada kanalka Kulmiye Private School. Haddaba Kulmiye Private School ayaa maalmahan wuxuu soo gudbinaya casharo English ah. Fadlan ku soo biir casharadeena xiisaha badan saad uga faa'iido luqadda Ingiriiska erayadeeda cusub. Haddaba maanta waxaanu ka hadlaynaa hadduu eeba qadaro hotel Pearl Beach Hotel. Hotelkii Pearl Beach habeenadan uu markaasi uu ku kacsanaa dagaalkii iyo qaraxii markaa meesh ayaan ka hadlaynaa, hotelkaas ayaynu ka hadlaynaa. Fadlan intaanan bilaabin casharka waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like garayso. Haddaba waxaa jira muuqaalada inay 40 qofood ama 50 qofood ay wada daawadaan laakiin aan like bala saarin. haddii like la saarayna kaliya ay gaarayaan like-tiisa 3 like, marka waxaasi waxay idinku tahay mid ceeb ah. anaguna waxay noo noqonaysaa dhiirigelin. fadlan haddaba ha ka tagin adigoon like dhihin muuqaalka. ku soo dhawaada markaa saaxiibayaal, markaa casharka ku soo dhawaada. waxuu markaa ciwaankiisu yahay casharkeena Pearl Beach Hotel. Pearl Beach Hotel, hotelka Pearl Beach ee markaa magaalada Muqdisho ee habeenadan oo dhan uu ka socday dagaalka. Six civilians, markaa waa 6 civilians, waa 6 muwaadiniin. Okay, civilians waa muwaadiniin, 6 waa 6. marka 6 civilians 6 muwaadin have been killed ayaa lagu dilay and 10 injured, 10 waa lagu dhaawacay. Injured waa maxay? lagu dhaawacay. and 10 injured, 10 waa lagu dhaawacay. after al-shabaab kadib markii al-shabaab attacked ay soo weerartay a beachside hotel, hotelkii dhinaca markaa beachka ama dhinaca xeebta ku yaal in the Somali capital ee caasimada Somali Muqdisho. booliiska ayaa sidaa dhahaya. security forces ciidamada ammaanka rescued ayaa badbaadiyey more than wax ka badan ama in ka badan 80 guests 80 marti from kuwaasoo markaasi ku jiray ka soo baxay the Pearl Beach Hotel, hotelka Pearl Beach ka soo baxay ayaa booliiska badbaadiyey. kuwa 80 qof ayaa la badbaadiyey. after a 6-hour siege kadib 6 saacadood oo go'doomin oo markaas ay ku jireen on Friday night, haweenkii Jimcada. 3 members, 3 xubnood of the security forces oo ka mid ah marka ciidanka markaasi ammaanka ka mid ah died ayaa ku dhintay in the rescue operation, howlgalka samata bixinta. okay, rescue operation waa maxay? waa howlgalka samata bixinta ayay ku dhinteen marka 3 qof ee ka tirsanaa ciidankii marka ammaanka ka tirsanaa. and have been praised, waana lagu ammaanay for their bravery, geesinimadii ay ku baxeen ayaana lagu ammaanay dadkan ciidamadan. all of the attackers, dhammaan kooxihii soo weeraray waa killed ayaa lagu dilay in a first gun battle, markaasi dagaal xoogan ayaa lagu dilay with kuwaasoo ay la galeen security force, ciidamada ammaanka ay la galeen ayaa markaasi kuwa ay soo weeraray dileen. okay, booliiska ayaa sidaa yiri. markaa Pearl Beach Pearl Beach hotelka lagu magacaabo Pearl Beach was popular, ayaa caan ku ahaa with government officials, madaxda dawladda ayaa meesha isugu tagi jirtay oo caan ku ahaa meesha. people, dadkii who were caught up lagu soo qabtay in this latest attack, weerarkani ee ugu dambeeyey, dadkii lagu soo qabtay weerarkani ee ugu dambeeyey. described ayaa sharaxay oo faahfaahin ka bixiyey the shocking moment, daqiiqadii naxdinta badneed, daqiiqadii argagaxa lahayd. armed men, rag hubaysan ayaa markaasi gudaha u galay. stormed waa maxay? waa markii shayga ama wax uu dadka gudaha u galo qof ayaa loo yaqaanaa. marka
armed men rag hubaysan stormed ayaa gudaha u galay the complex xarunta complex marna waxay noqotaa adag laakiin hadda waa xarun ay marka waxa marka la wareystay marka rag ama nin meesha taagnaa ama naag inay tahay ayaa marka la wareystay waxay tiri I was sitting waxaan fadhiyay near the beach xeebta markaasi dhinaceedan fadhiyay meel u dhow when the first explosion markii qaraxii ugu horeeyay habinad dhacay at the front gate oo ka dhacay marka ganjeelkii ugu horeeyay of the hotelka ganjeelkiisa ugu horeeyay markuu ka dhacay and there was waxaana jiray haddana another one mid kale at the back ayaa haddana dhinaca gadaal ka dhacay markii hotelka albaabkiisa ka dhacay mid kale ayaa haddana dhinaca gadaal ka dhacay ayaa markaas leedahay naagtan marka waxaan filayaa casharkan inaad ka faa'iideysateen aad ka baxsateen wixii idinku cusub ee eraya ah fadlan haddaba ogow waxaan ku siinayaa inuusan casharkani uusan la wadaagin wax policy ah ama wax political ah wax siyaasad ah annagu ma ahan inaan siyaasad aan ka hadalno balse Englishka erayadiisa aynu ka baxsanaynaa oo kaliya oo ma ahan inaan ka sheekeyno maanta arrimaha ka dhacay magaalada Muqdisho balse English ayaan ka faa'iideysanaynaa wixii eraya ah oo lagu cusub fadlan qof waliba ogow ay haysdihiin marka arrimo siyaasi ma la galay haddaba meesha siyaasad kuma jirto waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo wax bartaan barwaaqo gaarnay